todobaatan sanadood ka hor maanta oo kale 13 bishii sagaalaad sanadii 1944 ay ahayd markii ciidamada huwanta uu hogaaminayay dalka Mareykanku ay soo weerareen magaalada Brest ee ku taala dalka Faransiiska taasi oo xilligaasi gacanta ku hayay kaliya taliyihii haysta dalka Jarmalka Adolf Hitler. taliyihii hogaaminayay ciidamada huwanta oo ahaa Mareykan laguna magacaabi jiray Edward Howard ayaa sheegay isla mar ahaantaasina amarku bixiyay in ay magaaladani muhiim u tahay ciidamada huwanta isla mar ahaantaasina laga dhigo darajada labaad ee qabsashada marka loo eego dagaalka ay dhinacyada kala duwan kaga jiraan ciidamada huwantu. waqtigani waxaa la soo gaadhay xilligii magaalada gacanta lagu dhigi lahaa isla mar ahaantaasina ay ciidamadu dib u soo ceshan lahaayeen loogana saari lahaa dalka Faransiiska Adolf Hitler iyo ciidamadiisa. magaaladani oo ahayd mid ka mid ah magaalooyinkii ku harsanaa gacanta Hitler ee ku yaala dalka Faransiiska ayaa ahmiyad buuxda u lahayd Hitler. magaaladani oo kulaaleysay badda isla mar ahaantaasina lahayd dekad iyo sidoo kale xeeb aad u dheer ayaa ciidamada Jarmalku ay isku dayeen inay aad u difaacaan, balse taasi waxa ay keentay in dhimasho fara badan iyo sidoo kale ciidamada badan laga qabto. laakiin xaaladdu marka hore waxay ku bilaabantay cunaqabatayn bilaabantay 7 bishii 8 ee sanadkaasi, balse dagaalku waxa uu si rasmi ah u bilaabmay 13 bishii 9 ee isla sanadkaasi waxaana howlgalka fulinayay xubno ka kala socda ciidamada sideedaad ee dalka Mareykanka, gaar ahaan ciidamada lugta guuta ka tirsan oo ah guutada 126aad 125aad iyo sidoo kale ciidamo ka socda dalka Ingiriiska oo ahaa nooca ku dagaalama kaarayaasha iyo sidoo kale kaarayaal ay leeyihiin Mareykanka iyo Ingiriisku. ciidamadu waxa horkacayay oo goobta dagaalka hogaaminayay mid ka mid ah ciidamadii waqtigaasi ugu awoodda badnaa ee soo maray taariikhda dalka Mareykanka. Mr. Howard marka laga yimaado inuu ahaa taliyaha guud ee ciidamada huwanta, balse waxaa jiray gaashaanle ka tirsan ciidamada oo hogaaminayay guutada injineerada ee fulin doona mid ka mid ah howlaha ugu muhiimsan ee dhaqaaqaynta dagaalkani socdo. Sidney Smith waxa uu ahaa gaashaanlaha hogaaminayay guutada labaad ee injineerada, taasi oo loogu talagalay inay dah qaadaan qaraxyada bambooyinka iyo sidoo kale maraakiibta ka duqeyn karta meel fog kaarayaashu goobta ay taagan yihiin. balse qaladaadka ay ciidamada huwantu galeen waxaa ka mid ahaa in aanay ku talagelin in ay dhanka badda dagaal kaga iman karo iyo sidoo kale in ay yaraysteen difaaca Jarmalka ee uu kala hor iman karo dagaalka ay kula jiraan ciidamada kale iyo sidoo kale tiro khaldan oo ay ka qaateen ciidamada gudaha ku jira. magaalada Brest waxa ay lahayd gidaar difaac oo aad u adag, taasi oo lagu magacaabo qalcadda Mimbre, waana mid ka mid ah qalcadii ugu adkaa ee soo maray dagaalkii labaad ee dunida. qalcadani oo la dhisay bartamihii qarnigii 18aad, taasi oo loogu talagalay in ay ka hortagto gantaal kasta iyo sidoo kale madaafiic kasta oo lagu garaaci karo, ayaa soo gaadhay xataa qarnigii 20aad, waana xilliga uu socday dagaalkii labaad ee dunidu. isla mar ahaantaasina waxa ay lahayd qalcaddu gidaarro kala duwan oo kala dambeeya iyo sidoo kale ciid loogu talagalay inay difaacdo hubka, isla mar ahaantaasina ay madaafiicda ka hortagto, taasi oo cufnaanteedu ahayd 15 mitir. laakiin guutada uu hogaaminayay Mr. Smith waxa ay ku guuleysteen inay soo saaraan bambooyinkii lagu aasay dhulka, iyaga oo sidoo kale suurtageliyay in la helo waddo ammaan oo ay galaan kaarayaasha doonayeen inay duqeeyaan. kaarayaashii waqtigaasi ugu casrisanaa ee ciidamada huwantu haysteen oo ahaa kaarayaasha lagu naanayso yaxaaska ayaa ahaa kaarayaal marka laga yimaado madaafiicda ay sitaan ridaya dab, isla mar ahaantaasina ilbiriqsigii kasta dab ku duqeyn kara masaafo dhererkeedu dhan yahay 120 kilomitir, iyagoo isticmaalaya 106 litir oo shidaal ah, taasi oo u dhiganta shidaalka uu isticmaali karo gaari waqtigaasi jiray oo nooca dhaxa muddo 6 bilood ah. laakiin cunaqabataynta oo dheeraatay iyo 3 bilood kadib markii ay ciidanku dul yimaadeen halkaasi, ugu dambeyntii waxa uu suurta gashay ciidamadii halkani joogay ee huwanta ahaa in ay gacanta ku dhigaan qalcadaasi, balse waxa kaga dhimatay askar gaadhaysta 709 askari, iyadoo ay kaga dhaawacmeen askar kor u dhaafaysa 3,000 askari. laakiin nasiib darrada ciidamada Jarmalka soo food saartay ayaa ahayd in ciidamada Jarmalka laga qabto 40,000 oo askari, kuwaasi oo u dhigmayay askartii ka dagaalamaysay magaalada Mimbre, kuwaasi oo ahaa askarta ka soo horjeeda ciidamada Jarmalka ee huwanta oo tiradoodu ahayd isla 40,000 oo askari. ka hor intii aan magaalada laga qabsanin, ciidamadu waxa ay ku guuleysteen inay baabiyaan dekada si aanu magaalada ugu soo xidhanin wax markaba ama doonahay, taasi oo ciidamadii huwanta ahayd ku adkaysay inay magaalada ku sii hakadaan. balse ciidamada huwantu qorshahoodu ma aha inay magaalada ku hakadaan,
ee qorshahoodu waxa uu ahaa inay u jahaystaan dhanka magaalada Berlin. dhacdooyinkii ugu xasuusta badnaa ee ka dhacay intii dagaalku uu socday waxa kamid ahaa in mid kamid ah saraakiishii Ingiriisku uu ku guuleystay inuu gacanta ku dhigo 39 askari isagoo qori kaliya sita isla mar ahaantaasina hubkooda ka urursado. sidoo kale 40,000 oo askari oo kamid ah ciidamada Jarmalka ayaa gacanta lagu dhigay. dhanka kale waxa hal mar gacanta soo galay 70 askari oo kamid ahaa kuwii ka dagaalamay dhufaysyada iyagoo isku soo dhiibay wax ka yar 10 askari. laakiin jabkii soo gaaray Jarmalka marka laga yimaado, Jarmalku waxa uu noqday mid kamid ah dawladaha ugu dhaqaalaha badan qaaradda Yurub, isla mar ahaantaasina hadda waxa weeyaan dawladda koobaad ee xukunta dhaqaalaha qaaradda Yurub, waana mid kamid ah dalalka haysta hubka nuclear-ka. Yunus Cabdiraxmaan, Ariel TV, Hargeysa.